Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan mar kale daawadayaasha ku xiran bartan caalamiga ah ee Gradise Tube. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee mowduuceennii xasaasiga ahaa oo aan kaga hadlaynay faa'iidada timirtu ay leedahay. مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه haddaba daawaday haddii ay tahay markaadii kuugu horreysay oo aad soo booqato bartan Gradise Tube, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto, commentiga, like iyo share-kana intaa noo raacsiisid. mahadsanid. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أنه mar kale soo dhawaada walaalayaal. Waxaan gudagalaynaa qaybtii labaad ee taxanaheennii faa'iidada timirtu ay leedahay. Geedkan barakaysan ee timirta waa geed ka baxa dhulka kulaylaha ah, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysmaynin badi dalagyada kale ee la quuta. Sidoo kale waxaan hore usoo sheegnay dhulka ay timirtu ka baxdo waxaa kale oo la yidhaahdaa dhulka lamadegaanka, waana dhul saxare ah oo cimilada aad ay u kulushahay. Haddaba timirtu waxa ay leedahay faa'iido badan, waxaana ay caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jidhka aadamaha. Haddaba faa'iidooyinka iyo mucjisada uu koobsaday geedkan timirta ah ma aha mid lagu soo koobi karo muuqaal daqiiqado kooban soconaya ama quraan, laakiin waxaynu mar kale xusi doonaa waxyaabaha ugu caansan ee laga dhaxlo isticmaalka timirta, iyadoo qaybtii koowaad aynu ka soo hadalnay qaar badan oo ka mid ah faa'iidada timirtu ay leedahay. Maantana aan ku sii dari doono in kale oo faa'iido timirtu ay leedahay. Timirtu waxa ay dhintaa heerka kolestaroolka ee dhiigga, waxa ayna ka ilaalisaa xididdada dhiigga qaada qolfofsanaanta, sababtoo ah waxaa ku jira timirta maadada loo yaqaano pectin. Waxa ay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxaana ay ka ilaalisaa xanuunka babaasiirta, waxa ayna yareysaa dhagxaanta ku dhasha kaadi haysta. Sidoo kale waxa ay fududeysaa marxaladaha uurka iyo dhalmada iyo dhiigga ka dambeeya, waxaana ku jira fibres aad u wanaagsan iyo sonkoro dhaqso u riiqma. Waxa ay ka joojisaa in ilkaha uu suus galo, sababtoo ah waxaa ku jirta maadada fluoride. Waxa ay ka ilaalisaa jidhka sumaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka sodium, potassium iyo vitamin C. Waxa ay daaweysaa dhiig la'aanta, sababtoo ah waxaa ku jirta maadada iron-ka, kobarka iyo vitamin B2. Waxa ay daaweysaa jiljileeca lafaha, oo waxaa ku jira timirta maadooyinka loo yaqaano calcium, phosphorus iyo vitamin E. Waxa ay daaweysaa appetite la'aanta, sababtana waxa weeyaan maadada potassium-ka ayaa ku jirto geedkan timirta ah. Waxa ay daaweysaa itaal-darrada guud ahaan iyo wadne xanuunka, oo waxaa ku jira maadooyinka magnesium-ka iyo kobarka. Waxaa ku jira maadada selenium oo ka hortagta kansarka. Sidaas darteed baan dadka ku nool meelaha beeraha timirtu ay ka baxdo aanan u aqoonin faa'iidada timirta. Waxaa ku jirta maadada daaweysa itaal-darrada xagga galmada. Waxaa ku jirta maadada boron oo daaweysa rheumatism-ka iyo kansarka maskaxda ku dhaca. Waxa ay daaweysaa
qallaylka dubka iyo indhaha guruxooda, waayo waxaa ku jira maadada vitamin A. Waxa ay daaweysaa xanuunada ku dhaca mashiinka cuntada riiqa, waayo waxaa ku jira maadada vitamin B1. Waxa ay daaweysaa timaha daata iyo daalka indhaha iyo qallaylka afka, iyo sidoo kale infekshanka bushimaha. Taasi waxa ay sahlaysaa ama ku jirto maadada vitamin B. Waxaa ku jirta maadada daaweysa infekshanka dubka ama jirka. Waxa ay daaweysaa dacarta caloosha, waayo waxaa ku jirta maadooyinka sodium iyo potassium. Waxa ay daaweysaa xanuunada ciridka ku dhaca, waxaana laga helaa maadada vitamin C-ga. Geedkan barakeysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo, waana geed cunto ahaan ka sokow daawo ahaan loo adeegsado, isaga oo ka hortag u ah cudurro badan oo dadka aadanaha asiiba. Diinteennuna waxa ay dhiirrigelinaysaa isticmaalka midhaha. Nabigeena suubanaa nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee laga soo wariyay inuu yidhi, ma gaajoodo cidda ay gurigeeda taalo timir, gaajo ma qabato. Waxaana uu xadiidkani caddaynayaa oo markhaati ka yahay ahmiyadda ay leedahay timirta. Haddaba, timirtu waa cunnada ugu habboon ee lagu furo soonka caafimaad ahaan, sababtoo ah waxa ay u roon tahay dheefshiidka. Waana cuntada sida tartiibka calooshiida, waxaana intaasi sii dheer in ay dheecaannada iyo fitamiinada jirka ku jira ay isu dheelitirto. Markuu qofku muddo gaajaysnaado, waxayna sare u qaadaa appetite-ka qofka, iyadoo gaajada si dhaqso ah u yareyso. Waxaa intaasi sii dheer in ay gaaska iyo aashitada caloosha ay ka ilaalinayso in ay dhaawac gaarsiiyaan dahaarka caloosha. Sidaas awgeed, waa in aan ku dadaalnaa in soonka aan ku furannaa timirta annagoo sunnada nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee raacayno. Waad mahadsan tahay waqtigaada quruxda badanna waan kaga mahadcelinaynaa. Kulan dambe iyo barnaamij caynkani waxaan idinkaga tegayaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.